Qalam Education Platform. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا كالك أخبار شذا قلم Education Platform أو أحكامها أرضية مرة ربنا أدوى برتين معلمين خبرات له يخبر شطيله waxaan kusoo jirnay maadada teknolojiyadda ee fasalka 7aad ee dugsiga dhexe waxaan soo qaadanay waxaan ku sii jirnay casharkeeni ama jabtarkeeni afraad oo aan soo qaadanay casharkiisa koobaad casharkeeni koobaad wuxuu ku saabsanaa Windows-ka iyo computer-ka waxa uu ka qabto iyo heerarkii uu soo maray gaar ahaan Windows-ka shirkadii soo saartay waxyaabaha soo dhan ayaan ku qaadanay casharkeeni koobaad casharkana labaad waxaan ku qaadan doonaa haddii ilaah yiraahdo u kala socodka Windows-ka iyo sidoo kaleeto waxyaabaha Windows-ka inta badan laga isticmaalo marka uu qofka computer-ka baranayo ee ugu horeeya meelaha muhiimka ay tahay inuu ka ogaado computer-ka isla socono casharkana labaad u kala socodka Windows-ka waxaa muhiim ah inaad aad u barato aasaaska isticmaalka computer-ka isticmaalkiisa inaad marka hore aad u barato waxa aan tallaabo u sharaxi doonaa qaar ka mid ah waxyaabaha aasaaska ah ee aad u baahan tahay sida loo adeegsado desktop-ka furidda iyo xiridda daaqadaha iyo daminta computer-ka meel walba marka aad tagayso waxaad u baahan tahay in aad taqaano meesha laga galo iyo meesha laga baxo iyo inta aad gudaha ku jirto waxa aad isticmaali lahayd computer-ka marka isticmaalkiisa si wanaagsan ugu baranno waxaan u baahanaa waxyaabaha muhiimka ah ee aan ka qabsanayno horta inaan ognahay halka laga daarayo inaan ognahay halka laga dameeyo inaan ognahay sidaan dareemayno jiilkiina hadda waxaa tihiin jiil technology ah oo ku bartay teknolojiyadda ama ku dhashayba computer meesha laga daaray iyo meesha laga damiyay iyo waxaan u maleynaa inaysan wax badan u baahnayn oo barasho ah sababtoo ah way yar tahay maanta guri uusan aalin computer qofkana waxaa suuragal ah in isagoo aan meel u aadin waxbarasho ah in computer-ka wax badan haddaba uu ku shaqaysto okay aan ka soconno marka oogada meesha af Soomaali ahaan oogada loo bixiyay waa desktop-ka desktop maxaa la dhahaa marka computer-ka aad daarto shaashadda ugu horeysa ee ku soo muuqan doonto inta aan meel kala furin ayaa waxaa la yiraahdaa desktop marka uu computer-ka soo kaco waa kan marka uu computer-ka soo kaco muuqaalka ugu horeeya ee aad arki doonto waa oogada ama desktop-ka oogada miiska waa goob shaqooyinka laga maamulo okay waxa aad ka arki kartaa kana maamuli kartaa faylasha galalka barnaamijyada internet-ka iyo wixii la mid ah okay muuqaalka desktop-ka saaran waxaa ka mid ah muuqaalada desktop-ka saaran hoos aan ugu tegi doonaa kuwaas balse intaan hore aan sharaxno oogada ama desktop-ka waxaa la yiraahdaa shaashadan hoose ee hadda muuqata kuwan waa faylal furan kuwan waa wax furan iska daa laakiin meesha ugu horeysa ee ku soo muuqato haddii aan computer-kana tagnana halkan ugu horeeya ee noo soo muuqanaysa marka aan computer-ka soo kicinno ayaa waxaa la yiraahdaa oogada computer-ka ayaa la yiraahdaa meesha hadda ay faylasha noo saaran yihiin wax noo saaran yihiin inta aanan wax kalanta qabanin ayaa waxaa la yiraahdaa oogada ama desktop-ka ayaa la yiraahdaa okay kuwanna marka waa faylal furan oo aan horey u furnay kuwan arkaysaan faylal furan oo waxa weeyaan la furay intaan sawirka laga qaadin okay waxyaabaha marka laga maamulo waxaa ka mid ah ayaan halkan kusoo marnay muuqaalada desktop-ka saaran waxaa ka mid ah ee marka ugu horeeya ku saaran salada ama recycle bin okay
recycle binkan marka ugu horeeyo uu soo kacayo computerka sida aan ognahay waxyaabo badan ayaa lagu save gareeyaa ama lagu diyaarsadaa. kan aan arkayna hadda waa mid asaga kugu diyaarsan oo muxuu qabtaa waxyaabaha la iska masaxo ama la iska delete gareeyo ayaa lagu shubaa. sida halkan ka muuqato waa file ama waa sanduuq ama disk bin meelaha qashinada lagu shubo kaanta ay muuqaal ahaan u egtahay. halkan marka waxay qabataa waxyaabaha la delete gareeyo ama laga masaxo computerka ayaa si ku meel gaar ah loogu hayaa. haddii marka loo baahdana waa laga soo cestaa. okay, laakiin waxaa jirta mar uuna toos ugu bixi doono oo uuna mari doonin. waa maxay? waa marka aad halkan intaa gasho aad kasii tirto. halkan intaad soo gasho wixii aad bannaan kasoo tirtay haddana haddii aad kasii tirto way adkaan doontaa inaad soo ceshato. sidoo kaleeto haddii aad markaad tirayso shift iyo delete aad isla qabato ayadana halkan ma galaayo toos ayuu u bixi doonaa. okay, salada waa meesha si ku meel gaar ah loogu kaydiyo faylasha iyo galalka la tirtiro. sida hadda aan sheegaynay marka aad wax soo tirto ama folder ha ahaado oo gal ah ama file ha ahaado oo hal file ka kooban ha ahaado halkan ayuu soo geli doonaa. ka dambe haddaad u baahatana waad ceshan kartaa, haddaad rabtana waad kasii tiri kartaa. marka aad tirto file waxa uu wareegayaa saladan ama recycle binkan. tani waxa ay ku oggolaanaysaa in aad dib u soo celiso. halkan marka uu ku jiro waxa aad xaq u leedahay ama aad fursad u haysataa inaad dib u ceshato oo meeshiisii aad ku celiso. laakiin haddii intaad meeshan ugu soo dabagasho aad delete ka tiraahdo ma soo celinaysid oo waxay u baahan tahay software iyo waxyaaba kaanta inaad ku raadiso. okay, faylashii ama galalkii aad tirtay haddii aad ka noqotid si aad si joogto ah u tirto faylka waxaad u baahan tahay in aad faaruqiso salada. saladan inaad faarujiso ayaad u baahan tahay. faylashii ama galalkii aad tirtay haddii aad ka noqotid si aad si joogto ah u tirtirto faylka waxaad u baahan doontaa inaad faaruqiso saladan. meeshan wixii soo gala haddii aad u baahan tahay inaad kasii tirto halkan dhan waad faarujin kartaa. macnaha kulli wax ku jiro dhan dilaa sii dhigi doontaa kadibna ma soo ceshan kartid ilaa haddii aad u baahato inaad soo ceshatana software waxyaaba kaanta ay kaga baahan doontaa oo lagu soo celiyo daatooyinka lumo. okay, intaas waxaan u malaynaa in ay ku kooban tahay cashirkeeni koobaad oo ahaa recycle binka iyo desktop ku saabsanaa. waxaan ku daban qaban doonaa maadaama cashirkeena uu gaaban yahay kan saddexaad ayaan ku daban qaban doonaa. cashirkeena saddexaad waxa uu ku saabsan yahay buttonka la yiraahdo start ama bilowga. meesha koobaad computerka markaad joogto laga soo bilaabo waa halkan. halkan marka aad taabato waxaa ku soo baxaya waxyaabihii ugu dambeeyay aad furtay. sidoo kalentana waxaad samayn kartaa inaad search u dirto waxyaabaha aad u baahan tahay inaad ka raadiso. okay, buttonka bilowga asal ahaan waxa uu yaalaa desktopka dhinaciisa hoose ee bidix. dhinaca hoose ee bidix ayuu yaalaa. haddii aad rabtana intaad muuska qabato click aad ku dul siiso waad soo kicin kartaa. haddii kalentana marka aad joogto keyboardka badhanadiisa mid ka mid ayaa waxaa jirta qaab noocaas oo kanta leh oo calaamadda windowga kanta leh. kaas haddii aad taabatana waxay ka dhigan tahay start buttonka ayaa taabatay. wuxuu ku soo kacayaa sidii la yaqaanay ayuu kugu soo kacayaa. waa barta laga bilaabo dalabka barnaamijyada iyo faylasha computerka. waa halka marka aad u baahatay inaad soo kiciso halkaas startiga intaad taabato wax walba ku jiro oo aad ka raadiso wuu ku soo saaraya. muuqaalkiisa waxa uu isla bedelay xirmooyinka windowska. muuqaalka start buttonka ay u soo muuqanayso waxay isla bedelaysaa xirmooyinkii ugu dambeeyay ee windowska ee soo baxay sanadihii kala duwanaa. waxaa sawirkan ka muuqda muuqaalada buttonka iyo xirmada windowska. muuqaalada buttonska iyo xirmooyinka windowska ayaa sawirkan hoose ka muuqda. okay, windows 95 98 intii 40 me iyo 2003 dhammaantood waxa ay qaab noocaas oo kanta ay ahayd start buttonkooda.
اوكي waxaa ka dambeeyay Windows XP oo soo baxay 2001kii isagana qaab noocan ayuu u taalay start buttonkiisa. Windows Vista oo soo baxay 2007 iyo 7kii oo soo baxay 2009kii qaab noocan kaanta ayay start buttonkiisa u soo muuqan jirtay. Okay, Windows 8 iyo Windows 10 iyo 11 oo hadda soo baxay waxay u muuqataa calaamadda start buttonka ah noocan ay u muuqataa. Okay, xirmooyinka Windows 10, Windows 7 iyo xirmooyinka hore buttonka bilowga ah waxa uu furayaa dalabka start menu. Start menu ahaan ayaa loo furaa. xirmada Windows 8 waxaa loo adeegsadaa in dib ugu soo celiso oogada ama desktopka. In desktopka dib ugu soo laabato ayaa loo isticmaali jiray marka Windows 8 la joogay. kuwan kan laakiin waxay ahayn search. Okay, intaasna waxaan rajaynayaa in aan isla fahanay. Okay, waxaan rajaynayaa in desktopka iyo start buttonka inaan si fiican u fahanay iyo waxyaabaha ay qabtaan marka computerka aan joogno. waxaan rajaynayaa inaad ku celceshan doontaan maadaama aad tihiin team ku barbaaray teknolojiyadana wax badan inaad ka fahansantihiin ayaan rajaynayaa. inta casharkan mid lamid aan ku kulmi doono waxaan idin leeyahay dadaal wacan.